garoonkan oo soo maray heerar kala duwan ayay dad badan ku tilmaamaan inuu yahay jawharta astaanta oo ah nabadda. Waxaa la dhisay sanadkii 1988 waxaana dhisay injineero u dhashay dalkaasi Shiinaha, iyadoo weliba maalgelinta ay lahayd dowladda Shiinaha oo markaasi bahwadaag la ahayd dowladdii hantida ahayd ee uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre. sanadkii 1992 muddo yar kadib markii la riday xukuumaddii militariga ahayd waxaa la wareegay garoonkaasi ciidamadii uu horkacayay Mareykanka ee howlgalkii UNITAF. 1993 waxaa lagu wareejiyey howlgalkii UNISOM 2 halka ay xarunta u ahayd ciidamo ka socday dalka Pakistan. sanadkii 1995 ilaa 2007 garoonkan wuxuu ahaa mid burbursan oo ay ku ciyaari jireen kooxo ka dhisnaa waqtigaasi xaafadihii magaalada Muqdisho. sanadkii 2007 ciidamada dalka Itoobiya ayaa ka dhigtay xarun ciidan. sanadkii 2009 markii ciidamada Itoobiya ay ka baxeen magaalada Muqdisho, garoonkan ayaa xarun aan muuqan waxa ay u ahayd xogaga Al-Shabaab oo iyagu isticmaali jiray tababare ciidan oo aan muuqan. 2011 waxaa garoonkan la wareegay ciidamadii AMISOM waxaa si gaar ah u deganaa ciidamada waddanka Uganda. 2018 waxaa la wareegay garoonkaasi dowladda federaalka Soomaaliya. dayactirka lagu sameeyay kadib waxaa muuqata in ay soo noqonayso bilicdii garoonkaasi uu lahaa muddo gaaraysa 20 sannadood oo uu ku sugnaa burbur.